saddex boqol baa laynkaga dhigayaa baa liyi mushaarka anagu 300 garowe gaalkacyo ugu duuli mayne $50 baan qaadanaynaa ayada aan ku difaacayno gaalkacyo garowe xasan munaafiq mushaarka uga qaadanayno adeer anagu qalabka iyaga Puntland baan ku difaacaynaa u qaadan mayno meesha xabadda u baahan way yaqaanaan oo uga baahan difaaca u war degdega daawayaasha sharafta leh xiisadu faraha ayay ka sii baxday Puntland waxa ka dhacay diyaar garowgii ugu dambeeyay isla markaana ciidamada maamulkaasi ay ugu jiraan sidii ay ugu hortagi lahaayeen ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya oo dhawaan ay geysay maamulkaasi qaybta 54 ee halkaasi iyo sidoo kale dhaqdhaqaaqyo culus ayaa ka taagan ee magaalada Garowe oo la isku horfadhiyo diyaar garowgii ugu dambeeyay ayaa ka socda xarunta maamulkaasi ee Garowe Saciidani oo amar buuxa ku bixiyay in dhammaan ciidamada maamulkaasi ay heegan buuxa ay galaan dhanwaana ay qaadi doonaan tallaabooyin iyo sidoo kale duulaano ay ugu hortagi doonaan qorshaha Generaal Jimcaale Takar oo dowladda Soomaaliya halkaasi ay u xil saartay iyo dhaqdhaqaaqyo culus ayaa ka taagan ee gobolka iyo halkaan idin kula wadaagaya ee daawadayaasha sharafta leh hadaa marka hore nagu cusub tahay nagu soo biir subscribe saaro channelka like gareyso share garey muuqaalka si aad markasta halkaan ugula socotid xaqiiqda wararka dhabta ah halkaan kugula wadaagaya ee mahadsanid aynu gudagalno hogaamiyaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa amar buuxa ku bixiyay in dhammaan ciidamada maamulkaasi ay galaan heegan buuxa si ay ugu hortagaan duulaan farqaawan ay ku sheegeen dowladda federaalka Soomaaliya inay qorsheynayso weerarka airport madaxtooyada ee maamulkaasi ee Puntland isla markaan halkaasi looga adkaado Saciid Cabdullaahi Dani dhaqdhaqaaqyadii ugu dambeeyay ayaa ka taagan ee maamulkaasi isla markaana saacad kastana ay suuragal ay tahay inuu qarxo dagaal dhexmara ee labada dhinac cabsi xoogan ayaa ka taagan ee maamulkaasi ciidamada oo hogaamiyo Generaal Jimcaale Takar ayaa dhaqdhaqaaqyo culus ee ka wada dowladda federaalka Soomaaliya ayaa doonaysa inay halka ugu adkaato hogaamiyaha maamulkaasi ee Puntland Saciid Cabdullaahi hogaamiyaha maamulkaasi Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo sheegay inuu samarba aqbali doonin in halkaasi ciidamo ay ku sugnaadaan fariimo gaargaar ah oo loo diray ciidamo kala duwan isla markaana ay yihiin ciidamada qaybta 54 ee dowladda Soomaaliya isla markaana ay hostagaan Jimcaale Takar ayaa loogu digay inay ka digtoonaadaan isla markaana ay isku dayeen inay dhaqdhaqaaqyo culus ay ka bilaabaan ee magaaladaasi ciidamada gaarka sida gaarka u tababaran ee Puntland ayaa heegan buuxa galay iyaguna isla markaana dhammaan bar kontarooladii ugu muhiimsanaa ee magaalada iyo goob kastoo laga soo galay ayay xirteen ciidamada isla markaana ay ka wada halkaasi dhaqdhaqaaqyo aad u culus saacad kasta ayaa qarxi kara dagaalka u dhaxeeya labada dhinac iyadoo sidoo kale dadka deegaanka loo sheegay inay ka feejignaadaan isla markaana marxabaabinta ay wadaan ciidamadan sidoo kale waxaa maamulka Puntland ay bulshada u sheegayaan inaan ciidamo ahaan looga qoran ee deegaanada ee Puntland iyagoona ay ka wacyigelinaysa inay ku biiraan ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya kuwaas ay ku aaminsan yihiin inay yihiin ciidamo nabadda u diidan bulshada iyo sidoo kale ee maamulka ee Puntland dhaqdhaqaaqyo culus ayaa ka taagan ee gobolka isla markaana cabsi xoogan sidoo kale waa ay soo wajahday oo lama oga halka ay saldhigdhigan doonto arrinkaani laakiin xiisadu faraha ayay aad ugu baxday iyadoo sidoo kale cabsi xoogan laga qabo halka ay isla aadi doonto dhinaca kalena xiisadu lama oga halka iyaduna ay aadi doonto oo kadib markii xiisadu ay sii xumaatay oo ay sii kullaatay Jimcaale Takar ayaa isaguna amar buuxa ku bixiyay haddii ay isku daydo oo ay ku adkaysato oo inay qaadi doonaan tallaabooyin aad u culus isla markaana ay ugu hortagi doonaan arrinkaasi sidoo kale Jimcaale Takar ayaa amar buuxa ku siiyay in la diyaariyo dhammaan ciidamada heegan buuxa la geliyo Garowe si caawa waxaa ku jira ciidamada maamulka Puntland iyo kuwa dowladda Soomaaliya isku horfadhiya magaaladaasi heegankii ugu dambeeyay iyadoo looga cabsi qabo in halkaasi uu ka qarxo dagaal dhexmara ee labada dhinac Jimcaale Takar ayaa sheegay inuu samarba tanaasuli doono isla markaana uu samarba ka tanaasuli doono fikirka dowladda Soomaaliya oo ah in dalka Soomaaliyeed lagu wareejiyo ee dowladda federaalka Soomaaliya isla markaana laga daayo carqaladeynta iyo sidoo kale dhaqdhaqaaqa isagoona amar buuxa ku siiyay ciidamada maamulka Puntland inay ka waantoowaan oo ay dib ugu laabtaan haddii Saciid Dani looga adkaado halkaasi lagala xisaabtami doono wixii khasaare halkaasi ka dhashana iyagu ay qaadi doonaan ee mas'uuliyadda Jimcaale Takar ayaa sheegay in dib ay ugu laabtaan madaxtooyada iyo halkii ay ka yimaadeen sidoo kalena ay furaan wadooyinka ugu muhiimsanaa
waxaa la soo tabinayaa in gaari hub u siday ee qaybta 54aad ay gacanta ay ku dhigeen ciidamada maamulkaasi ee Puntland kuwaasoo diiday gebi ahaanba in gaarigan uu u sii gudbo iyaguna ay sheegeen in gaarigan marnaba laga ogoleen ee deegaanada maamulkaasi sidoo kalena Puntland ayaa sheegtay in gaarigan iyadoo yahay mid ay u fasaxan yihiin dhoolatuskii ugu dambeeyay ayaa lagu soo bandhigay ee magaalada Garowe kadib 30 iyo dhowr sanadood markii ugu horeysay ee taariikhda ayaa Garowe ciidamada ee dowladda federaalka Soomaaliya qaybta 54aad ee maamulkaasi ay ku soo bandhigeen diyaar garow aad u culus iyo sidoo kale ciidamada dhoolatuska muujiyay ayaa cabsi xoogan ka muujiyeen maamulka ee Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa sheegay in intaan ka badan xadkooda ay soo dhaafeen ciidankan isla markaana loo baahan yahay in la tuso awoodooda isagoona sheegay in si degdeg ah ciidamada maamulkaasi ay qaadaan tallaabooyin cadcad looga hortagayo ciidamada generaal Jimcaale Takar oo ku sheegay inay yihiin kuwa ka shaqeynaya amni darada isla markaana doonaya inay burburiyaan nidaamka ee ka jira ee maamulkaasi ee Puntland waya dhaqdhaqaaqyo culus ayaa ka taagan isla markaana laga cabsi qabo saacad kasta inay halkaasi uu ka qarxo dagaal aad u qaraar oo dhexmara ee labada dhinac cabsi xoogan ayaa ka taagan ee sidoo kale ayadoo sidoo kalena laga muujinayo in halkaasi ay ka jiraan xiisad aad u culus iyo sidoo kale dhaqdhaqaaqyo aad u culus nin ka mid ah askarta sida gaarka ay ugu qortay dowladda Soomaaliya ee deegaanadaasi ayaa ka hadlay dareenkiisa isagoona sheegay in dowladda Soomaaliya kaliya ay ka qaadan doonaan mushaarkooda laakiin aysan dhibaato gaarsiin doonin reerkiisa isagoona xusay inaysan marraba ka aamusi doonin dhibaatada lagu hayo wuxuu xusay oo carab wuxuu sheegay in marraba uusan aqbali doonin in fargelin lagu sameeyo maamulkiisa wuxuu sheegay in mushaarka oo kaliya ay ka qaadan doonaan laakiin taa beddelkeeda aysan u dhiman doonin dowladda federaalka Soomaaliya sidoo kalena qorshaheeda ku aadan maamulkaasi Puntland uusan ahayn wax hirgelaya oo soconaya askarigan ayaa xusay inay qaadi doonaan tallaabooyin cadcad oo lagu difaacayo midnimada maamulkaasi isagoo sheegay inay ka xaabsan doonaan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud kaliya lacagta laakiin uusan marraba u suuroobi doonin inay isku dayaan inay ku xadgudbaan maamulkaasi haddaba askarigan ayaa ahaa mid ka mid ah kuwa ugu muhiimsan oo dowladda federaalka Soomaaliya ay ka qortay deegaanada maamulkaasi Puntland ugu dambeyntii hubkii generaal Jimcaale Takar oo kala tagay magaalada Muqdisho loo geeyay Garowe sidoo kalena ciidamadan ayaa loo diyaariyay xero muhiim ah ee qaybta 54aad oo hore u lahaan jirtay dowladdii burburtay ayaa mar kale dib loo cusboonaysiiyay iyadoo sidoo kale ay socoto shaqooyin iyo howlo adag ayaase sheegay inaysan marnaba aqbali doonin farigelin kasta lagu sameeyo maamulkiisa dabcan askarigan wuxuu ka mid ahaa dadka ugu muhiimsanaa isla markaana loogu tashanayo maamulkaasi oo laga filayo inay qaadaan tallaabooyin culculus looga hortagayo nidaamkan isla markaana maamulka Puntland iyadoo ay sheegeen uu ka mid ahaa askarta generaal Jimcaale Takar jananka ayaa isagu war ka soo saaray sidoo kalena ka hadlan askarigan sheegay in kaliya mushaarka ay ka qaadan doonaan dowladda federaalka Soomaaliya laakiin aysan u dhiman doonin Jimcaale Takar ayaa dhaqdhaqaaqyo culus ka wada Garowe iyo sidoo kale xiisadu si fara ayay ka sii baxday lama oga halka ay saldhig dhigan doonto laakiin saacad kasta ayaa suuragal ah inuu qarxo dagaal aad u xun oo dhexmari kara labada dhinac markaana isku farsaari karaan kaasoo sababi kara khasaare kala duwan isugu jirta dhimasho iyo dhaawac caawase Garowe ayaa la isku fadhiyaa Jimcaale Takar wuxuu amar buuxa ku siiyay in ciidamada ay diyaar garow xoogan ay galaan sidoo kalena qofna uusan meel u dhaqaaqin saacad kastana ay u diyaar garoowaan duulaan oo ugu yimaado dhanka Puntland halka hogaamiyaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo amar buuxa ku bixiyay in la qaado duulaanadii ugu dambeeyay oo looga adkaan lahaa ka hor intaysan weeraro aysan qaadin ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya qaybta 54aad ka jooga Garowe intaysan duulaan qaadin oo ku amray in si degdeg ah ay u qaadaan beelaha halkaasi dega ay ka mid tahay Dashiishe iyo sidoo kale reeraha kale leelkasa ayaa loo sheegay inay qaadaan tallaabooyin degdeg ah sidoo kalena dhalinyaradoodii ay si degdeg ah ugu biiraan ciidamada iyagoo loo balan qaaday lacag iyo sidoo kale hub ay ku difaacayaan maamulkoodii oo loo sheegay sidii inay ka shaqeeyaan nidaamka iyo maamulka taasoo lagu sheegay in loo baahan yahay in si degdeg ah loo qaado xaaladuse
si dhabana loo wajaho islamarkaana la qaado tallaabooyin culus islamarkaana looga hortegayo sidoo kalena wax looga qabanayo xaaladda deegaanka. xiisada seefara ayay kasii baxday, lama oga halka ay saldhig dhigan doonto, laakiin dhaqdhaqaaqyo culus ayaa ka taagan magaaladaasi Garowe ee caasimadda maamulkaasi Puntland ayaase ka socda dhaqdhaqaaqa aad u culus islamarkaana looga cabsi qabo in xiisadu seefaraha ay kasii baxdo si wax loo qabto. Aan ku sii daayo muuqaalka askariga. 300 baa layn kaga dhigayaa waliye mushaarka. Anagu 300 Garowe gaalkacyo ugu duuli mayne $50 baan qaadanaynaa ayada aan ku difaacayno. gaalkacyo Garowe xasan munaafiq mushaarka uga qaadanayno adeer anagu qalabka iyaga Puntland baan ku difaacaynaa u qaadan mayno. meesha xabadda u baahan way yaqaanaan oo uga baahan difaaca u baahan shabeellaha dhaxayo iyo aadan yabaal weeyo oo abgaala oo waliba xasan jifadiisu degan tahay. bismillaahi raxmaani raxiim. magacaygu waa xasan saciid cali, waxaan joogaa magaalada gaalkacyo. halkan waxaan fariin uga dirayaa madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Dani iyo saraakiisha ciidanka oo dhan iyo gaar ahaan dhalinyarada midiyaha kabtan Ayuub Cabdirasaaq oo ku magac dheer kabtan Ayuub. halkan waxaan rabaa inaan maanta ka sheego xog sir ah oo ku socota dowladda Puntland. anigu waxaan ka tirsanaa ciidan gaalka mudug laga qoray oo gobolka mudug laga qoray oo federaal ah. annagoo 100 nin ah baa nala qoray, meel baa nala geeyey xero, tababar baa nala siiyey, 3 bilood baan xareysnayn, waa nala soo daayey. waxaa la yidhi mushaarkiinana qaata, markii layniin baahdana imaada. waa nala siiyey, waa nala soo saaray. 3 bilood mushaarkiina waa qaadanaynay. 5aad baa naloo yeela, markii layniin baahda layna yimaada. bishii 5aad baa naloo yeela, waa tagna. waxaa la yidhi mushaarkana waa laynii kordhinayaa, qalabkiinii wixiina waa layni siinayaa, howlgal baa la rabaa inaad gashaan Garowe ama gaalkacyo inaad ciidan ka howlgelaya baa laynaku darayaa. waxaan idhi Garowe iyo gaalkacyo ciidan ka howlgelayaa. Garowe iyo gaalkacyo dee amni weeye, ciidan ka howlgelayaysaana lagu darayaa. wixii hadal ka qabaa fartaa taagaan baa liyi, fartaan taaga. waxaan ku yidhi Garowe iyo gaalkacyo waa nabadgelye. shabeellaha dhexe aadan yabaal iyo shabeellaha dhexe miyaanan naloo wadin oo aan halkaa ka howlgelayn? malaaliye askari baa tihi, amar qaadashaa laynka rabaa. waxaan ku yidhi anigu hawshaas kuma jiro. waxaa la yidhi waa dambiile ha la xiro. 3 beri baan xirnaa, daanooyin baa lay geystay, waa lay soo daayey. 3 nin baa isoo raacday 4 beri ka hor. 3 nin baa isoo raacday. 3 nin markaan soo tagnayba kaarkayga baa la wada xira. salaam bagi baa inta la soo wacay baa kaarkayga la xiray. kaarkayga golisaayo 15 sanaan wadanay waa la wada xiray. salaam bagi warqadayna soo siisay oo tiri dowladda dhexe la xiriira. ma dowladda dhexe xukunta kaarkayga goliso aan 15 sano wadanay? dowladda dhexese hadday annaga qalab iyo mushaar noo kordhinayso, qalabkana siinayso, markii calmiska dagaal ka socday mayna siiso mushaarkana noo kordhiso, halkaasna howlgalka naga geliso. maxay tahay Garowe gaalkacyada maanta nabadaayo hawsha laga gelayo? anigu 3 beri baan xirnaa, kabacdina rag baa ila xanaaqay. 3 nin baa isoo raacday. insha allah inta kalena waxaan rajaynayaa inay soo raaci doonaan. xogaha kaloo aan hayo waxaa weeye saraakiil Puntland lacag ka qaadata ka mid ah ku jida raggaa oo aan mid u garanayna, mid walba guryahooda aan ugu tegaynaa, waana soo qabanaynaa. madaxda iyo dowladda waxaan ka codsanayaa iyo kabtan Ayuub, ninkii maalintuu calmiskaad ku dhaawacmay 5,000 oo qof koomaha u gashay naxdintiisii kow baan fariin uga dirayaa. waxaan rabaa marka in ciidanka weliba Puntland ka howlgelaya awali aniga raggayga lagu daro, sidii aan calooshaqaystayaashaas aan wax uga soo qabanno. nin walba meeshiisa iyo meesha hawsha uu ka leeyahay iyo meeshuu degan yahay iyo meesha howlgalka lagu gelayo intaba waan naqaanaa. waxaan rabaa haddii ilaahay awoodda la ogaado
codsigayga in la soo aqbalo ragga kale oo dhalinyarada iga harayna inay igu daysadaan baan rabaa sida ugu dhaqsaha badan. midda kale ciidamada laga qoriyo meesha 2 qaybood baa loo rabaa ayadoona hawshaas saraakiishan la wadaagayaa xogtaas madaxdii saraakiishan rabaa si sirayna ula wadaago waxa looga dabacsan yahay 2 qaybood laga qoriyo wixii looga dabacsanaa hawshooda saasaan rabaa inaan u gudbiyo. marka fariintaas madaxda iyo madaxweynaha iyo saraakiisha iyo kabtan Ayuub raggu ka yahay si dhaqsaha badan baan rabaa ragguna inay ugu daysado in la ii soo jawaabo. 300 baa leen kaga dhigayaa waliye mushaarka anagu 300 garawiye gaalkacyo ugu duuli mayne $50 baan qaadanaynaa ayada aan ku difaacayno baan ku adkaystay waa la 3 maalmood u xiraa oo waxyaalo la geeyo dhinac walba wax laga geystay ka bacdina 3 nin baa soo raacday inta kalena way iga daymaanaysaa insha Allah. codsigaygaas si ugu dhaqsaha badan in layga soo jawaabaan rajaynayaa madaxda uga soo jawaabto. gaalkacyana wixii adeer 30 sano waxay ahayd maanta ka tagi mayso iyo Garowe iyo Boosaaso midna ninkii 200 dhigiisa waa noo xalaal ninkii 200 iyo 300 Garowe gaalcay lagu soo dirayo annagu adeer waan iska daynay kaartayadiina waa loo xirxiray annaguna 3 bari baan u miigaysnaynay waa iska hor nimaanaynaa insha Allah. way daawateen ay muuqaalkan dhinaca kalena ciidamada qaybta kontada ee afraad ee war-saxaafadeed dhankooda kala soo saaray askariga ay ka duwnaayeen ayaa iyaguna ku daari doona ee muuqaalkooda nala daawo. waxaan ku suganahay fariisimaha kamid ah ciidanka qaranka Soomaaliya ee ku yaala magaalada Garowe qaar kamid ah ahladu waa nabadgelyo yaan islaamka been loo sheegin yaan dadka la barakicin ciidanku wuxuu ku sugan yahay xiriyihiisii si nabadgelyo ah buu joogaa caruuraha Saciid Cabdullaahi Deni waalaayana waxa la wararka xaafadihiin iska aad aliina duwalayahay yaan dabka la igu tusugay aad baa u mahadsantahay. way hadaawadayaasha sharafta leh intaas ay nooga ekaadaan dhammaan wixii wararka xaqiiqo ku saabsan ay ka taagan deegaanada maamulkaasi ee Puntland gunta wararka ka dhigo wehel iyo saaxiib markasta waxay diyaar ku la tahay inay ku soo gudbiso xaqiiqda ka taagan ee guud ahaan ee Soomaaliya iyo caalamkaba halkan kala soco like garay subscribe saaro muuqaalka share garayso ha moogaanin ee channelkaaga iyo channelkeenaba iyo keenaba iyo kaagaba si aad ula socoto sidoo kalena aad uusan ku dhaafin xaqiiqda wararka halkan kala socmaasiin.